بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalyaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni nutrition-ka iyo diet-ka taxanahan waa taxanihii aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan bishii barakeysneed ee Ramadaan waa gabagabo waxaan nooga haray waxa weeye 2 maalin ama 1 maalin sida ay noqotaba insha Allah taala waxaan jeclahay videogii ugu dambeeyay aan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan in aan idin la wadaago waxaan ka baryayaa Allah subhanahu wa ta'ala inuu naga aqbalo amalkeeni wanaagsanaa salaadihii aan tukanaynay soomkeeni aan sameeynay iyo cibaadada noocyadeeda kala duwan ee aan sameeynay sadaqada iyo dadkii dhamaan mataqaana amalkii wanaagsanaa ee ka qayb qaadanaynay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha naga aqbalo waxaan jeclahay waxa waaye bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan ka faa'iidnay 10 fara badan xaqiiqii aad u tiro badan anuu sheekh ma ihi laakiin Ilaah subhanahu wa ta'ala 10 ugu weyn oo uu rabo in aan ka barano bishaan barakeysan waa in aan noqono dad taqwada Ilaah subhanahu wa ta'ala barto oo ku dhaqma oo la yimaada oo taqwadaasi ay ka muuqato in aan noqono ayaa loo baahan yahay marka bisha barakeysan ee Ramadaan waa jaamacad waa madaraso ku barayso waxyaalo fara badan waxyaalahan ka hadlaya aniga wuxuu ku saabsanaa nutrition-ka iyo diet-ka ama cuntada iyo nafaqada waxaan rabaa 10 ku saabsan arimahaas oo bisha barakeysan ku fuudeyn karto in aad ka baratid bisha tan barakeysan ee Ramadaan in aan idin la wadaago maanta waxaan rabaa ilaa 7 cajiladood waan sameeyay 7 cajiladoodna waxyaalo fara badan ayaan ku soo bandhigay qofkana waxa loo baahan yahay in uu xaqiiqdii ku dadaalo waxyaalaha faraha badan ee martay marka maanta waxaan rabaa waxa waaye 10 door noocaas oo kale 10 muhiim ah oo qofka ka caawinaya sidii noloshiisa u guuleysan lahaa si noloshiisa waxyaalihii nutrition-ka iyo diet-ka ama cuntada nafaqada aan ka soo sheekay oo la qabsan lahaa in aan idin la wadaago marka waad ogtihiin bishii barakeysan Ramadaan markay bilaabanaysay qof walba niyada wuxuu ku haystay in uu bishaan barakeysan uu ka faa'iideysto oo uu waxa waaye ma garanaysaa uu si fiican u dhameysto oo uu cibaado fiican u la yimaado oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dambi dhaafo marka waxa muhiim ah markaas oo kale qofka in uu leeyahay clear vision waa in mataqaana aragtidaada ay caddahay aragtidaadu waa in ay ku muuqan karto waa in ma garanaysaa aad arki kartid waxaad rabtid waxaad diidan tahay iyo waxaad doonaysidba waa in ay ku kala caddiin sida daraadeed qofka markuu uu barnaamijka nutrition-ka iyo diet-ka rabo inuu ka faa'iideysto waxa loo baahan yahay in uu yaqaano waxa uu cunayo sida uu cunayo waqtiga uu cunayo iyo faa'iidada ay ku jirto waxa uu cunayo waxyaalahaas oo dhan oo aan soo sheegno aan ka soo hadli jirnay ayaa loo baahan yahay qofka inuu u yeesho aragti dheer oo ma garanaysaa aragtidaas oo uu ku dhaqmo marka faa'iidada ugu weyn qofka 10 ugu weyn oo ka baran karo Ramadaan waxa waaye kuna saabsan 10 nutrition-ka iyo diet-ka in uu clear vision uu leeyahay tan labaad waxa waaye bisha barakeysan laga baran karo ee Ramadaan waxa waaye qofka in uu la yimaado self discipline xaqiiqdii qof walba oo rabo adduunkan inuu guuleysto aakhirana uu ku guuleysto waxa loo baahan yahay in uu yeesho self discipline waxa waaye qofka waa inuu nafsadiisa sida loo xakameeyo uu barto waxyaalo fara badan oo jeclaan lahayd inaad sameysay bisha barakeysan ayaa jira ee Ramadaan waxyaalaha soo dhan waa ka tanaasushay sheekadii faraha badneed ma garanaysaa meelaha fadhiisan jirtay quraankii waxa laga yaabaa 2 jeer 3 jeer 4 jeer inaad sameysid sidaas la mid ah waxa loo baahan yahay qofka markii aan dhahayay in la iska dhaafo ayaa fiican saambuusaha iyo burka iyo waxyaalaha waxyaalaha xun oo dhan qofka loo baahan yahay lifestyle-kiisa in uu bedelo waxa uu ku bedeli karaa oo kaliya in uu la yimaado self discipline ama xakameynta nafta haddaadan aqoonin way adag tahay adduun iyo aakhiraba inaad guuleysatid marka waxaa muhiim ah qofka in uu la yimaado self discipline waa muhiim xaqiiqii wax badan ayay ku fududeynaysaa 10 saddexaad ee laga faa'iideysan karo bisha barakeysan 10 ee nutrition-ka iyo diet-ka ku jirana waxa waaye commitment qofka waa in uu caziimo adag uu leeyahay waa in uu go'aan adag uu leeyahay qofka waa in uu aaminsan yahay waxaan uu maskaxdiisa uu ku haysto ee wanaagsan in uu ka salgaari karo marka tusaale ahaan oo kale markii aad cuntooyinka aniga haddaan tusaale iska soo qaado bishaan barakeysan 3 sano ka hor ayaa waxa igu dambeysay bur iyo saambuuse iyo malawax iyo waxyaalaha Soomaalida ay ku afuraan in aan ku afuro
marka waa go'aan adag qofka laga rabo in uu qaato go'aankaasna xaqiiqdii waxyaalo fara badan ayaan ka faa'iiday marka commitment waa muhiim waxa waa inay caziimo ka tahay waa inay kuwa ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad tala saaratid go'aan adagna la imaan saaxiibada ayagoo cunaya cuntadii xumeed waxa loo baahan yahay inaad ka tagtid sometimes ayay kugu dhacaysaa mararka qaarkood waxa kugu dhacaya waxaa arkaysaa qofkii saaxiibka ahaa ama dadkii aad la socotay oo mataqaana cuntadii xalwadii cunaaya sambuuskii cunaaya burkii cunaaya malawixii cunaaya marka waxa loo baahan yahay in ma garanaysa aad ka istaagnaad aad tirahdid may aniga ma ihi qofkaas idinka sameeyo laakiin aniga go'aan adag ayaan ka qaatay marka commitmentiga waa muhiim xaqiiqdii qofka daarti guul inaad gaartid waa casharada aan ka baranayno bisha barakeysan ee Ramadaan commitment la imow qofkii wuxuu ka tanaasulayaa waxyaalo fara badan uu sameyn lahaa si uu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala taqadiis u helo tan kale oo muhiimsan oo cashar kale ku jirto waxa waaye concentration waxay yiraahdaan qofka waa in uu ogsoon yahay وحل شيء وإنه ما قرنسا حوجة صاروا أما دور شيء وإنه حوجة صاروا ووصل كله يحن وضداس وإنه كسعده وضداس صدوق كله حذو صوبته وحوا وكم مشغولة يعني مركو حلوب هاي قفتي إنه concentration لي ماذا أو متقانا وضداس عد وكسعده وصفي عن وصعده مال كله وصل ولا يحن distractions أما حيالك كله كاسي جديني وحرف هداد هديات أركتد وأنا كسي جيستد وآذن لا إيماني marka waa muhiim waaye qofka in uu go'aankii uu qaatay wadadii uu ku socon lahaa oo ku socdo uu iska ilaaliyo waxyaalaha kale tusaale ahaan oo kale waxaan ka hadalnaa nutritionka iyo dietka marka aad rabtid in aad tusaale ahaan oo kale 15 pounds askaridid waa in aad waxyaalihii faraha badnaa ee aan soo sheegnay inaad ka tagtid waxayna kuu fududeynaysaa arrinkaas waxa waaye in aad qofka aad noqotid qof goolkiisa uu cad yahay concentration leh wadadiisa ay ku soconaysana uu caddahay marka wadada aad ku soconayso waa inay ku cadaato marka casharada kale asleeyahay waa laga faa'iidi karaa bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa kamid ah consistency waa in qofku waxa uu joogteeyo wuxuu la imaanay amalkii aad la imaanaysay waa inaad hadii tusaale ahaan kale goolkaagu waa Ramadaan inaad dhameysay 3 jeer quraanka waa inaad joogteysid maalin walba inaad joogteysid wax akhrisid tusaale ahaan kale ani goolkay waxa waaye sanadkan 2017 ka 100 cajiladood inaan sameeyo oo ku saabsan nutritionka iyo dietka si arrinkaas aan u gaaro waa inaan maanta oo dhan waxa waaye mar walba aan maalin walba cajilad aan sameeyo aan idin wadaago oo ma garanaysaa aan soo bandhigo waaye waa in aan nafsadeeda ku qasbo marar qaarkood anigoona waqti aan helin laakiin waxa waaye celceliska faraha badan marna shayga aragti ka qaldamay marna ku saxsameeya ayaa lagu gaaraa goolka aad rabtid marka consistency nutritionka iyo dietka iyo marka rabtid inaad lifestyle-kaaga aad bedeshid waa in aad cuntadan aad ka tagtay saliidda badneed ama sonkorta badneed ama cusbada badneed ee aad ka tagtay waa inaad maanta dhan ku celcelisid oo aad joogtaysid oo mar walba xusuusnaatid oo aadan dhinacaada uga leexan marka consistency-ga ama joogteynta waa waxa ugu weyn waa tii xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ahaa ilaahay wuxuu jecel yahay camalka la joogteeyo xataa camalkaas ha ahaadee camal waxa weeye aad u yar casharka ugu dambeeyay aan ka faa'iidi karno bisha barakeysan ee Ramadaan waxa waaye in mataqaana aad la imaatid evaluation waa in aad qiimeyn aad ku samaysid naftaada tusaale ahaan oo kale Ramadaan uu dhamaaday waa inaad fadhiisatid oo aad tirahdid maxaan ka faa'iiday bisha barakeysan ee Ramadaan maxaa ii kordhay quraankii aan 3 jeer dhameeyay ma laga yaabo inaan dhameeyo ama ma laga yaabo inaan ka sii fiicnaado cibaadadii fiicneed ma laga yaabo ma garanaysaa in aan sii fiicneeyo oo aan ku sii daro caadadii fiicneed ama camalkii wanaagsanaa ee aan bartay ma laga yaabo in ma garanaysaa aan kor u sii qaado saas lamida evaluation qofka lifestyle-kiisa markuu bedelayo waxa loo baahan yahay mar walba inuu joogtay oo yiraahdo shalay maxaa cunay maanta maxaa cunayaa haddii aan cuntadan bedelo ma laga yaabo in natiijadeeda ay bedelanto ma garanaysaa cholesterol baa haya maxaa keenaya cunto noocaya keenaysa macaanka ay haya maxaan mataqaana ku badashaa marka casharadaas walaalayaal waxaan jeclahay inaan video idinku dheereeyo laakiin waa cajalad ugu dambeysay aan ugu talagalay taxanihii bisha barakeysneed ee Ramadaan ugu talagalay walaalaha inay faa'iideystaan marka qofka inuu isku noqdo loo baahan yahay uu sameeyo reflection uu fakaro uu yiraahdo maxaa ii kordhay sanadkan maxaa ii kordhay bisha tan maxaan ka faa'iidi karaa Ramadaankan maxaa nolosheeda mataqaana ka bedeli karaa in uu feedback isa siiyo loo baahan yahay haddii qof uu ka aqoon badan uu jiro oo saaxiib leeyahay in qofkaas uu yimaado ee mataqaana uu kala tashto
arrimahaas oo dhan loo baahan yahay casharada aan ka baranayno bisha barakeysan Ramadaan waaye inta aan iskaga arki doono casharadeenii caadiga ahaa mutaqaana noo socon jiray isbuuc walba waxaan kaga tagayaa sidaas islaamka waxaan rabaa balse in aad cajiladan aad la wadaagtaan dadka kale. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.